okay haddii lagu dhihi lahay wax ka sax ama in beeraleyda ama beeraha dadanaha isticmaaleen ama ganacsataha ahaadeen ama oo dadkan ganacsatada beeraha waaweyn laha ahaadeen ama beeraleyda yaryar ha ahaadeen maxaad ka sixilay si guud waxaan u bixinayaa adoo sida priority ku leeyin kala horumarinayo okay waxaan u bixinayaa xal guud kow numberka koowaad waa aqoonta shay aadan aqoon u lahayn ma xallin kartid problem aadan aqoon u lahayn kama hortay kartid aad iyo kow shaygan markaad aqoon u yeelato aad ka hortay kartaa marka kow waxaan ayidayaa in dadkan hawshan gelaya ama beeranaya ama greenhouse dhisanaya noocay dooni ha noqdaan in marka koowaad ay aqoon dad u leh ay raadiyaan training ama tababar ay qaataan markay tababaradaas qaataan in ay hawshoodii galaan kuwa horta aqoonta waay dadkan marka fog oo beerihii jooga aan jirin dawlad extension u samaysa ama gaarsiisa beerihii ayaga qudhoodu inay soo raadiyaan oo soo baxaan oo meeshii cilmiga beeraha lagu yaqaan ama jaamacadihii way yaqaanaan xamar jaamacada ku yaalo ama meelaha qaarkood ay imaadaan problemyadu ay keenaan ay dhahaan annaga hadda beeraleynahay problemkan aan haysto waxaa jirta iskaashatooyinku inay imaadaan oo meelaha macluumaadka lagu haayo deedna dadka qaab aqooneed in loo dhiso oo horta la gaarsiiyo aqoontooda la xoojiyo kuwaas beeraha jooga xataa Allah ka dhigay bal in waxyaabaha ka qaldan loo sheego si ay uga hortagaan horta waa xalka koowaad ee wax lagu hagaajin karo labo dadku inay ka go'naansho ay jirto waxaan qofka haday ka go'an yihiin wax waa sameyn kartaa laakiin hadaysa ka go'aneen wax ma sameyn kartid labana waxa waay inuu qofka leeyahay ka go'naansho hawshana inuu ka shaqeeyaa qofka beeraleyda beertan haduu rabo inuu si cilmiyeysan ugu shaqeeyo waa inuu cilmigeedii raadiyaa intuu asaga yaqaanay waa inuu ku darsadaa aqoon kale magaalada waa horumartay social media yimid waxa yimid meel wax la soo gudbiyo yimid kaamirooyin iyo wax walba macnaha adduunka waa si horumaray adduunkan marka maanta in uu noolaatid adiga in aqoon darro kugu disho waa ceeb gaar ah ay sii noqonaysaa marka qofku inuu wax raadiyo dadka ehelku aana wax weydiiyo qaabkaas ay horta kow waxay ku noqonaysaa in dadkaasi la qaado labo dadka wax bixiya qudhoodu intaasoo milyan intaasoo lacaga Soomaaliya loogu deeqa aalaleey dadkaas qudhoodu wax bixiya maadaama dadkeenu ay xoololey iyo beeraley iska yihiin in loo sameeyo ama qof mas'uul ah oo dadka umada xukuma ama umada talada u haya taas fariintaas ayay u taala in waxyaabaha qaarkood dadka beeraleyda lagu dhiirigeliyo meeshii lagu dhiirigelin lahaa wax kale inay sameeyaan in waxyaabihii ay u baahnaayeen waxyaabahaas loogu gado kadibna lagu dhiirigeliyo qofka inta soo saaro intaas aan siinayna in la yiraahdo waxa soo dhan waxay faa'iido u yihiin dadkii inay kacaan wax beeraan maadaama dadkii hadda aad moodid in beerihii laga soo kaxeeyay oo la keenay magaalada oo haddana aan moodid in biil gacanta lagu siiyo taasoo ka hor imaanayso in dadku ay ka baxaan wax la yiraahdo inay ku jiraan xaalad hubanti la'aan ah taas marka in dadkaasi dhankii lagu dhiirigeliyo in wax beeraan wixiina loogu bedelay dhan dhiirigelin loogu bedelo dadka beeraha bartay oo dhalinyarada ah oo agriculture ka soo baxayana in dawladdu ay u sameeyso ama cidda markaas organization ahaat ama dawladda ahaatay wixii taageeri kara inay sameeyaan oo ummadana ka naxay inay sameeyaan dadkaas wax barto dhalinyarada ah oo beeraha yaqaano in ay u wacaan la fariistaan lagala tashado arrimaha beeraha laguna dhiirigeliyo oo maalgelin la siiyo si ay ayagana u kordhiyaan wax soo saarkii dalka ayna uga qayb qaataan loona yareeyo baahida jirta ee tirada badan taasuna waa xal kale oo la sameyn karo hadii dadka awood u leh ay awoodaan waa ayadu inay awoodaan inay intaas sameyn karaan dadkaasna lagu dhiirigelin karo beeraleydaasna lagu caawin karo wax soo saarna lagu sameyn karo dadka marka greenhouse-yada dadan qaybtaas ayaga iska leh qoliyahaas ganacsatada oo xoolaha leh kow
wax idinma suurtagelayaan production saxna ma helaysid adigoo helin qofkii ku habboonaa aqoonta lahaa cilmigaana garanayay inaad meesha ka shaqaalaysiisid dhaqaalana ku siisid aadan fiirin dhaqaalaha meesha ka soo galaayo oo kaaga baxay aadan fiirin ee aad fiirisid qofkan aqoontiisa professionalska uu leeyahay waxaan in aad ku tashid haddii adiga aad qarash gelisid oo qarashkii aad ku feelgarowdid wax macnaha kuma sameynayso qarashka meesha gelisay adaa qasaaro ku jiro laakiin ugu yaraan qofkan aqoonta leh waxa ka qaato laakiin waxa ku soo noqonaya wax kamid ah dhaqaalaha meesha gelis ugu yaraan markaasna waa qayb kamid ah asaga qofkaas marka aan ku sheegay ee kugu habboon asaga xalka ku keenay meesha wax ka jiraan ku sheegay marka ugu dambeyn marka waa maxay talada ugu dambaysa oo bixinayso adigoo ku saleynaya qaabka aad u aragto in ay beeraleyda lagu horumari karo ama ay wax ku soco karaan ama wadanku beerihiisa ama maadaama ay yihiin dhaqaalaha ugu badan wadanku meesha uu ka heli lahaa marka loo fiiriyo dhulkanaga iyo qaabka ay dhul beereedkiisu yahay iyo fursadaha aan haysano marka adoo ku beesgareynaysid habkaada adigu u aragtid waa maxay taladaada habkan anigu arko horta kow taladeeda ugu dambaysa ee ay siisay fursadda ah waxaan rajeynaa inaan ku soo gabagabeeyo dalkan wuxuu u baahan yahay xal oo dhanka beeraha hadiya kow waa in la isku xiraa dadkii aqoonta lahaa ee dawladdii hore macnaha joogay oo waxaan capacity-ga aqooneed ama xilligaas wixii jiray dadkii maamulay qaarkood waa joogan dadkaas ama ka soo shaqeeyay dadkii markaan dambe beeraha bartay iyo dadka beeraleyda intaas oo la isku xiro oo laga dhaxaysiiyo linki nimankii horena ay dhaxal reebaan oo dadkan dambe oo beeraha bartay ay wax ugu tagaan ay seminaaro u qabtaan cilmiga gudbiyaan aqoonta dhalinyarada hadda maanta joogta ka maqan ee beeraha bartay inay workshopyo sameeyaan inay ku cazuumaan ama invitationno caalami ah inay soo diyaariyaan midalan jaamacadaha oo kaleeto jaamacadaha agriculture-ka ku xoogan oo magaalada ka jira ama dalka ka jira in ay ardayda wixii qualification-kooda sareeyo ama oo high ah ama akigooda high ah ama la yimid hal abuuro la yimid inay u sameeyaan wax la yiraahdo in qoladaas ay ka shaqeyso hore beeraha muddo ka soo shaqeysay maadaama ayaga meesha ka sii baxayaan in dadkaas loo sameeyo meel caalami macnaha barnaamijyada caalamiga agriculture ka dhacayo in invitation loo keeno ay ka qayb galaan si macnaha aqoontooda personality ay u kordhiyaan ay bulshadana nafac oo ugu haro waxa shayga ah ee wanaagsan waa aqoonta waay hadaanan aqoon lahayn wax ma soo saari karno hadaan aqoon leenahay laakiin wax badan aan qaban karnaa oo soo saari karnaa marka dhankan agriculture-ka kow asal ahaan in dadku ay aqoon u leeyihiin ay wax ku bedeli karaan qofkii haddii waxaan sheegaan war dhibaato kugu yahay ee iska ilaali uu sagari karin ma gara karo waxa ugu imaan kara ee dhibaatahana uu fahmi karin qofkaasi automatically waa wareersanaana wareerkaas uu ku dhimana hadan soo ugu jiro marka qofkii dadkii horta kow aqoon ahaan waa in soo guud loo xiro intaasoo generation aan ku sheegayna waa in la isku xiraa dadka beeraleyda hadda jooga dadkii wax bartay dadkii hore oo waxaan mashaariicdii dalka ka soo shaqeeyay in la isku xiro kadibna dalku uu dhanka agriculture-ka ka yeesho wax policy ama siyaasad cad oo qeexan oo agriculture-ka ku saabsan oo la detail gareeyay oo in laga sameeyo dalkana si horumar loo gaarsiin lahay sababtoo ah wadankeena horumarkiisu wuxuu ku xiran yahay annagoo ka faa'iideysana hantida aan haysano oo ay ugu horeyso beeraha haddii wax soo saar dunida aan sameyno maanta Ukraine qamadi soo saareysay qamadi dalkan tijaabooyin waa la sameeyay hore loo sameeyay 2018-19 jaamacadda lagu sameeyay ka hor maybe in research ay jiri jireen xilliga dawladda in la sameeyo waa laga yaabaa oo ay jireen marka wixii la sameeyay dunida marka haddii marka Ukraine maanta qamadigeedii annagoo Soomaaliya joogna la dareemo leeyahay Ukraine qamadigeeda go'ay waxay ku tusinaysaa in agriculture-ku uu yahay il kaliya oo dadku wada wadaagaan
marka in sidaas darteed horumar la sameeyaa oo dadkii cilmi baaris loo sameeyo santarada cilmi baarista lagu sameeyo in la badiyo dadka beeraha barto active ka ah in cilmi baarista sida qaroobka loo horumariyo iyo dalagyada anaga muhiimka noo ah sida galleydo kaleeto sida masagado kaleeto sida cereal crop waa cuntooyinka loo baahan yahay in la horumariyo si looga maarmo waxaan dibadda ka imaanay bariyo go'i karaan bari hadii go'an adigu magaaja u dhimanaysa marka waa inaad leedahay resource ku gaar ah oo adiga aad samaysatay marka intaas waxay ku imaan karaan in laga wada shaqeeyo guud ahaan si cooperative looga wada shaqeeyo si daacadnimo ku jirto dadkana wax loo reebo dadka aqoonta leh ee waxaan aqoonta u leh waxaan ka codsanaynaa anagoo dhalinyaradii beeraha ku jirtay ah inay dalka wax u reebaan oo dadku ay maaragtay dhiirigeliyaan oo ay ka shaqeeyaan si wadanku uu u gaaro aqoon ahaan dhanka beeraha si loo horumaro in la iska daayo inta badan waxaan bilaabay darrada ku baxa ee haddana aan loo adeegsan wadadii saxda ahayd waxa markaa sameeynaysan alla ka baqa loo sameeyayo alla in loogu dhawaado in cunto adiga ah soo saartay dad intay cunaan dadkaas ku manaafacaadaan oo ay dadkaas ay maaragtay gaajada ugu maarmaan oo naftaas la badbaadiyo ayaa waxay ka wanaagsan tahay wax kasta oo cibaado ah sameyn lahayd ka wanaagsan sababtoo qof noloshiisa la badbaadiyo wax ka wanaagsan ma jiraan marka inaan xaaladda oo liidata mar walba ku jirno waa laga fiican yahay waxa leedahay maadaama jiil dhan oo dhaxda ka baxay oo dhowr jiil maqan yihiin jiilka hadda yimid oo beeraha ku soo fufay iyo jiilkii hore oo xilligii ay aqoontan fidiisay joogay in ay wax u reebaan maadaama ay hadda ayaga khalaas ay ka sii baxayaan aad iyo aad markaas in la xoojiyaan waa talada ugu weyn oo bixinaysa taas waa mahadsantahay Masar Faysal Maxamed Cuthmaan cilmiga wanaagsan iyo talada wanaagsan ee aad ummadda siisay waana ku mahadsantahay inaad waraysiga naga aqbashay intaas waxaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeenii aad kala socon jirteen Beeraha TV oo maanta kusoo qaadanay warbixin ka hadlaysa ama waraysi ka hadlaya beeraha noocyadooda kala duwan iyo qaababka ay u shaqeeyaanba marka markasta waxaan diyaar u nahay inaanu ummadda u soo gudbino waxa nacfiga leh ee ay ku manaafacaadsan lahaayeen ama cilmiga ay ka qaadan lahaayeen ama talooyin wanaagsan ama dadka indheergaradka ee cilmiga beeraha u leh aqoonta inaan u soo gudbino cilmigooda aqoontooda iyo talooyinkooda wanaagsan ee ku aadan beerashada ama beerashada habboon intaas waxaan kusoo gabagabeynaynaa waraysigeennii galabta wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu